si aad hackinka u barato yaabaad u baahan tahay ama tooliska aad u baahan tahay inaad haysato ayaynu ka hadli doonaa videogan. Number 1 waxaa noqon doona inaad haysato computerkaas specificationkiisu noqon doona inuu ahaado Core i5 ugu yaraan uu ahaado, RAM-ka ku install garaysana ugu yaraan ay noqoto 8GB. graphic card inuu lahaadaana waa muhiim oo password hacking buu ku fiican yahay. virtual machine weeyaan toolka labaad u baahnaa inaan haysanaana, kaasoo inoo saamaxaya inaynu ku install garaysano Kali Linux-kii, Metasploitable-kii, toolskii aan u baahnay inaynu ku shaqeynayno ama aynu ku baran lahayn hacking inaynu ku dhex install garaysano isaga gudihiisa. marka laba nooc baa jiro, midna kana ka arkasana VMware baa la yiraahdaa, mid kale oo VirtualBox la yiraahdo wuu jiraa. labadaba waa isku mid, just in wada isticmaali kartaa. toolka saddexaad aan u baahanahay waa Kali Linux. waxa weeyaan waa Kali Linux waa operating systemkii aynu ku sameynaynay hacking-ka markaa inoo saamaxayna wax jabsano. marka waa muhiim, isagu waa number 1 ba oo isaga hadaan isaga inaan haysan waxa kale inoo sameyn karnaa ma jiro. isaga waxa noogu diyaarsan tools fara badan oo hacking-ka loo isticmaalo ama penetration testing-ka. marka toolka saddexaad aan u baahanayna waa ka waxa kale aynu u baahanaynaa Metasploitable, meeshii aynu ku tijaabin lahayn hacking-kii ay baranay practicing halkan ku sameyn lahayn. waxyaabo badan bay noo qabanaya markaa kani, waxyaabo badan ay ka mid yihiin inuu meel aynu ku tijaabino muxuu ahaa hacking-kii, ay noqoto web hacking-kii, ay noqoto database hacking-kii oo serverada ay noqoto inuu dhex galisteedii barano. waxyaabo badan bay noo qabanaya marka intaasaa ugu muhiimsan waxyaabaha aynu u baahannahay si aad u barato hacking ama aad u noqoto pen tester, aad u noqoto qof tijaabin kara muxuu ahaa systemyada muxuu ahaa shirkad ugu shaqeyn kara inaad pen tester noqoto ama cyber security. intaba free baa lagu helaa markaa computerkaas unba isagu lacaga, laakiin waxaa kale ka soo haray waxa free internet ka heli kartaa. videoyada dambena waxaynu ku arki doonaa sida loo soo download gareeyo, sida loo install gareeyo toolska aynu aragnay.